بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا دمان داودياشا ديح تي في oday farxaan ahaa ayaa maanta fadhiya barnaamijka su'aalaha dadka dadka uu ku weydiin jiray maanta asaga ayaa la weydiinaya farxaan soo dhawow ku soo dhawow barnaamijka su'aalaha kadiska deex tv maxamed waa maasantaa saaxiib inkastoo aniga su'aasha ay weydiisaan diyaar u ahay aan oran doonin sidoo kale ninkaan saaxiibkaya haddii aad xasuusataan waa ninkii hadda ka hor barnaamijka su'aalaha inta weydiiyay jawaabtiisu ay noqotay sensitive way su'aasha jawaabteedu marka anu maxamed maanta sensitive way dhihi maayo diyaar baan waa su'aasha ay weydiisana ka jawaabo okay farxan haddii aad diyaar tahay ma galabtii hore waxa ay weydiisay su'aalo ku saabsan barnaamijyada jacaylka iyo afaarahaas ayaa ay weydiisay waxaan rabaa inaan su'aal xoogaa tii u dhow aan ku weydiiyo laakiin su'aasheeda waa kaa soo nidaamiyo sidii taadoo kale ma ahan direct question ma ahan waxaa jiray wiil sheeko yar markaa sheekeynaya sheekadaas markaan kuu dhameeyo ayaa su'aal kaa weydiinaya waxaa jiray wiil iyo gabar saaxiib ah ayaa jiray jacayl ayay soo wada jireen waqti dheer markay bacda waqti dheer ay jacayl wada jireen bacdigeed ayaa gabadhi waxay tiri ahdi aan wada galno wiilkii ahdi ayaa la galay gabadhii waraaq ayay soo qortay gabadhi markay waraaqda soo qortay waxay tiri waraaqdan hayso wiilkiiba ku tiri waraaqdan hayso markaa naftaada u yaabtid akhri waraaqdan inta ka horeysa taaban markaa naftaada u yaabtid akhri oo kala fur marka jawaabta sugaya waxay noqotay warqada ha su'aashii ahdi ahaan hayso markaa yaabtid oo naftaada u yaabtid baad akhrin kartaa inta ka horeysa ma akhrin kartaa hay wiilka gabadha uu ka aqbala waraaqda uu ka qaatay jeeb uu gashtay oo iska haystay maalmaha ka mid ah ayaa soo galaas ku jira oo xoogaa fakerayo dhahayo niyow waraaqda aad jeebkaada ku sidatid oo gabadha ku soo dhiibtay oo lagu xiray markaa naftaada u yaabtid akhri maxay tahay xoogaa wuu baxay xiisadii buu ka haray macalinku sharxayay macalinka arka asagoo xoogaa fakeraya waraa istaag beed maxaa la fakeraysaa macalinkii wiilku u sheegay wuxuu yidhi niyow hawshaas ay haysata gabar baan saaxiibe ahayn jacayl baanu soo wada jinlay waraaq waa iga qodho xatay ilaa aan nafta u yaabtid ma ahane ha akhrin waraaqdaas wixii niyow aniga ii dhib anaa ku akhrinaya aniga ii dhib anaa akhrinaye ilaa adu maad akhrin moogtaa haddii qof kale ku akhriyo macalinkii wiilka waraaqda u dhiibay macalinkii waraaqda kala furay wuu akhriyay cabaar hadduu akhriyay macalinkii waraaqda isku laalaabay hoo buu yidhi iskuulkaan nambar dambe kuguma arki karo ka bax wiilkii asagoo yaaban macalin maxaa ku qoran jawaabta ii sheeg waxba kuu sheegi mayna idhaaf fiicni oday ka tagay wiilkii waa iska tagay gurigiisuu tagay aabihiisuu u tagay subaxii dambe waa iska jiifsaday aabihiisu inuu iskuulkii hawshaada meeda wixii aabbo macalinku ay soo ceeshay see ku soo ceeshay maxaa qalad oo samaysay biyo aabbo wax qalad aan sameeyay ilaa haatan garan maayo waraaq baa jidha jeebka igu jidha gabar aan saaxiibeen ba ay soo qodhay waxay igu tiri ilaa aan nafta u yaabtid maahane waraaqdaas ha kala furi hana akhrin anoo waraaqdii ka fakerayay ayaan macalinka i weydiiyey macalinkii waraaqdii u dhiibay wuu akhriyay wuu isku laabay iskuulkiina waa iga soo ceeshay odaygu wuu qoslay wuxuu waxaas ma dhici kadhaa waa dhici kadhaa gaab ii dhibiyo waraaqda aan akhrinayay odaygii baa bal waraaqda macalinka kugu soo ceeshay ii dhiib aan akhrinayay waraaqdii baa loo dhiibay odaygii waraaqdii baa loo dhiibay odayga waraaqdii uu kala baxshay wuu akhriyay markuu waraaqda dhameeyey ayuu isku laaba wiilku wuxuu sugayay inuu odaygu jawaab u sheego waraaqda isku laabay aabba waraaqdaada qabso yidhi aabba waraaqdaada qabso gurigeygana iyo xaafadaydana kuguma arki karo idhaaf wiilkii waa yaaba war odaygiina maku ceeshay ha macalinkiina maku soo ceeshay waraaqdan maxaa ku qoran mana akhrin karo isagoo ahdi waa lala soo galay ballan baa lala soo galay waxaa ilaa aan nafta u yaabtid ha akhrin wiilkii waraaqdiisi waa jeebka ku cishta hadda odayga hadduu guri kaga ceesho waa ka tagay moogta waa iska dareera meeluhu shaqo ka baarbaartay shaqo buu helaa bad ah markab ayay boos ka helaa oo shaqaale ah markabkuu iskala shaqeeyey nin dhalinyara buu ahaa nin furfurana wuu ahaa way isfahmeen shaqaalihii ayaan hadduu markabka la shaqaynayay ayaa maalinta dambe ninkii markabka mas-uulka ka ahaa iyo asaga ayaa is waraystay sidii cabaa loo rabay in walba waxba ka sheekeeyey
maxaa kugula yaab badnaa waxaasaa laga sheekaysta wiilka wuxuu yidhi niyahow waraaq ayaa jirta gabar ii qodhay aan saaxiib nahay waxayna igu xidhay shuruuda ilaa aan nafta u yaabta maahan waraaqaas akhrin macallinkaygii iskuulka ayaa akhriyay iskuulku iga ceershay aabahayga aniga dhalay ayaa akhriyay xaafadda iga soo ceershay waa tan maanta isoo saarnay markabkaana ninka wuxuu yidhi barkabka mas-uulka ahaa waraaqdaas ma arki karaa biyo saan akhriyo mii dhiibi kadhama haysaa haa waa hayaabiyo waraaqda wiilka soo qabtay ninkii wuu akhri wey ninkii waraaqdii buu akhriyay cabaar hadduu akhriyay waraaqda wuu laalaabay sidii hore loo laalaabi jiray ayuu u laalaabay wiilku nin dhalinyaro ahaa dhab buu sii waa qabto badda ku tuuray badweyn baan la marayaa badweyn sheekada badweyn bay isku badashay badda dhexdaa la marayaa wiilkii markabka waa laga tuura wiilka xaaladda waa ku cakirmato wuxuu siiyey waraaqda gabadha ay kuu soo qodhay maanta maalin ka daran oo ka yaab badan ma jirtee bal maanta akhri wasiiri waraaqda bal soo baxay wiilkii waa badda dhexdeeda saas markuu waraaqda u kala baxshay ayaa waxa soo dhigtay mawjad baa soo dhigatay asagii iyo wixii huf waa kala tuudha waraaqdii badda la tagtay wiilkiina bartuu ku bahalkeysmo marka farxan su-aasha aan ku weydiinay waxay tahay wiilkaas waraaqda rafaadkaas gelisay maxaa ku qornaa waxaa lagaa rabaa wixii ku qornaa waraaqdaas baa lagaa rabaa inaad sheegtid walahi waa su-aal adag kowdhe wax badan baan ka fakeraysa u malaynaya su-aashaan kasoo fakeraysa waa gaadmo wey waa igu gaada haddaana been sheegayna su-aasha jawaabteeda saxan hadda ma hayo sababta waxa weeye ninkan dhibta uu soo maray warqadda intay soo marsiisay hadduu fahmi kara isagaa soo saari lahaa iga cilmi badan maadaama aan garan waayo su-aashaas waxaa la kaashan ka dhaca bulshada ayaa la kaashan ka dhaca maya waxaan nooga jawaabi doonaa insha allahu tacaala aan su-aashaas rabaa inay igu furtaan asxaabtayada isticmaasha ama asxaabteena aan bahwadaagta ku nahay channelka Deeq TV waxaan filayaa inaad su-aasha jawaabteeda naga soo caawin doontaan maadaama ay tahay su-aal aad u adag sida hadda arkayseen maxamedna waxaan filayaa inaan u soo fakari doono su-aasha isaga uu keenay mid lamid ah maxamed toddobaadka dambe noo tahay haddii ilaahay waxay soo furanayaan insha Allah dadweynaha Deeq TV hadday dadweynuhu soo furtaan waa meesha faxan waaga waxa maqla jadaan malanaya hebel baa soo gabiyo hebel baa u gabi hebel gabi waa ka xirma adiga marka su'aalaha gadiska oo aniga ay weydiin jirtay waa ka xirmeen ilaa inta soo jawaab su-aasha jawaabteeda waa helaynaa insha Allah Deeq TV oo arkaysaan ma soo furtay insha Allah waxaan rajeynayaa inaad jawaab sax noo keeni doontaan haddii la yiraahdo si aan isaga difaacno maxamed anigu kulli su-aasha waa garan waay ninkaana su-aashii hore waxaa kasoo wareegtay muddo bil iyo weliba siyaado ah aan weydiiyey intaasna uu soo fakarayay marka si aan su-aalo danba u weydiino ay noogu furmaan su-aaluhuna waxaan idinka sugaynaa inaad jawaabtaasna soo siisaan insha Allah intaynu ku kulmayno barnaamij lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu